waxaan kaa codsanayaa haddii halkaan ku cusub tahay inaad subscribe ii saartid si halkaani aan ugu dhaqaaqno oo aan u gaarno meel sare. haddii muuqaalkaani ku soo gaaro like saar si dad fara badan u gaaro. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. soo dhawaada akhyaarta meel kastoo dunida ku joogteen. dhaqaalaha waa lafdhabarta nolosha adduunkani. waxaa lagu tartamaa dhaqaalaha. dowladaha caalamka maanta waxay ku tartamaan dhaqaalaha. qof kasta oo dhaqaalo haysta maanta waa la tixgeliyaa, waa la qadariyaa. bulshadan wuxuu kaga jiraa boos aan la qiyaasi karin. soomaalidu waxay ku mahmahdaa labadu walaalo ah qofkii lacag le ayaa weyn. anigoo xasuusan midaasi ayaa waxaa rabaa inaan halkaani idinku soo gudbiyo sidaan ku gaari lahayni isku filnaansho dhaqaale. qof kasta maanta wuxuu rabaa inuu dhaqaale fara badan uu helo. dhaqaalaha fara badan waxaa lagu helaa wadooyinkaasi qofkii qaado ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u suuragelinayaa inuu samaysto dhaqaalo aan halkaan laga soo koobi karin. muuqaalkaani like saar si dad fara badan u gaaro. haddii halkaan ku cusub tahayna subscribe noo saar. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. qof kasta maanta wuxuu rabaa inuu ku noolaado nolol raaxo leh. nolosha raaxada lehna waxaa saldhig u ah dhaqaale. qof aan haysanin wax dhaqaale ah kuma noolaan karo nolol raaxo leh. haddaba waxaa rabaa inaan halkaani kuugu soo gudbiyo qodobo kuu suuragelinaya haddii aad sidii looga talagalay aad u samaysid in noloshaadii isbeddel weyn aad ka dareemi doontid. sidoo kale waxaad heli doontaa dhaqaalo la taaban karo. haddaba muuqaalkaani bilaaw ilaa dhammaad ila soco. qodobka koowaad, baro xirfad dhaqaale leh. qodobkaani aad ayuu muhiim u yahay. adduunkani waxaa lagu kala tagay xirfadaha. qofka hadduu leeyahay xirfado wuxuu ku noolaanayaa nolol inaba aan aadi yahayn. adduunkani waxaa lagu tartamaa teknolojiyada qeybaheedii kala duwan. adagana waxaa lagaa rabaa inaad baratid xirfadaha teknolojiyada sida samaynta muuqaalada, graphic design iyo wixii la halmaalaa. qofka hadduu noloshiisii mar weliba ka fikiro wuxuu gaarayaa horumar la taaban karo. xirfadaha waa shay aad muhiim u ah. qofka hadduu leeyahay xirfado cid uma baahana, asaga ayaa shaqaysan kara. dadkana asaga ayay u baahan yihiin. qofka xirfada leh wuxuu ku noolaanayaa nolol inaba aan aadi ahayn. haddaba waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad baratid xirfadaha ugu dhaqaalaha badan sanadkan 2025 waa samaynta muuqaalada. qodobkaani aad ayuu muhiim u yahay. dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ayaa sanadihii u dambeeyay waxay bilaabeen inay ka shaqaystaan social mediaha, gaar ahaan YouTube-ka, Facebook-ka, TikTok-ka iyo meelaha kale. dhalinyaradaasi maanta waxay ku nool yihiin nolol heer sare ah. waxay u dalxiisaan dhammaan caalamka. dhalinyaradaasi waxay ku gaareen ilaahay ka sokow xirfadihii ay barteen. adigana waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad baratid xirfad. dhalinyaro fara badan ayaa waqtigooda waxay ku lumiyaan isticmaalka social mediaha, gaar ahaan YouTube-ka, TikTok-ka, ayagoo aysan ka faa'iideynin waxba. qofka hadduu u adeegsado wadada wanaagsan wuxuu ka faa'iidayaa faa'iidooyin aan halkaan laga soo koobi karin. YouTube-ka maanta waxaad ka helaysaa wax weliba. waxaad ka baran kartaa ingiriiska, sidoo kale waxaad ka baran kartaa samaynta muuqaalada iyo cilmi kastoo aad u baahan tahay. maanta uma baahnidi inaad macallin hor fadhiisatid, balse waxaad u baahan tahay oo keliya inaad heshid telefoon iyo internet. wax welibana adiga ayaa isbari kara. haddaba waxaan idinku dhiirigelinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed inaad xirfad baratiin si noloshiinii isbeddel la taaban karo aad ugu samayseen. qodobka labaad, wax kayso. qodobkaani aad ayuu muhiim u yahay. qofku waxaa loo baahan yahay inuu wax kaysado. adiga hadda i daawanayo waxaa laga yaabaa inaad isleedahay maxaan keysanayaa, wax dhaqaale maba haystee, lacag maba haystee, maxaan keysanayaa. waxaan kuu sheegayaa waxaad keysanaysad. haddii aad tahay ardayda waxaa laga yaabaa isbuucii ama bishii inay lacag yar soo gasho. haba ha yaraatee haddii ku soo galo $1 waa inaad qayb ka mida aad keysataa. waxaad ka baranaysaa barito habka wax loo keysado. qofka hadduu ku shaqeeyo bishii $50 ama $100 waxaa looga baahan yahay 10% ama 20% inuu ka keysado. barito noloshiisii waxay u noqonaysaa nolol raaxo leh. adduunkani dadka noloshii meel sare ka gaaray markaa la sheekaysatid waxay kuu sheegayaan inay dhaqaalahooda qayb ka mida soo keediyeen, maantana ay ku nool yihiin noloshaasi. adigana waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad lacagtaada qayb ka mida aad keysatid si noloshaada barito isbeddel la taaban karo aad ugu samaysad. qodobka kale aadka muhiimka u ah
wax isbarid self education qodobkaani aad ayuu muhiim u yahay inaad maalgashatid naftaada waa wadada ugu fiican aad ku samaysan kartid dhaqaale qofku waxaa loo baahan yahay inuu naftiisii horumariyo inuu waxbarasho joogto ah naftiisii baro si noloshaani ugu sameeyo isbeddel la taaban karo adduunkani dhaqaalaha waxaa laga helaa aqoonta iyo xirfadda qofka hadduu leeyahay aqoon waxaa u suurtogalaysaa inuu dhaqaale fara badan uu helo qofkuusan lahayn wax aqoon ah waxaa ku adkaanaysaa inuu noloshiisii ka dhigo nolol la taaban karo haddaba waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad ku dadaashid wax isbaridda ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay waaladiina uutul cilma darajaat dadka cilmiga u saaxiibka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siiyey darajooyin aan halkaan lagu soo koobi karin adigana waxaa lagaa rabaa inaad noloshaadii horumarisid barashada qur-aanka kariimka barashada maadiga qeybahiisii kala duwan sidoo kale waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad baratid tiknolojiyada qeybaheedii kala duwan sida looga shaqaysto social mediaha haddii aad fahamtid sirahaasi aan halkan kasoo sheegay waxaad noqonaysaa qof noloshiisii horumar la taaban kara gaari doonto biidni illaahi tacaala marka aanu ku dadaalno wax isbarida ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay yarfaci allaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutul cilma darajaat qaar idinka mid ah ayaynu kor u qaadnay ayuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waaladiina uutul cilma darajaat dadka cilmiga la siiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sare u qaaday darajooyin aan halkaan laga soo koobi karin walaalayaal wax isbarida aad ayay muhiim u tahay qofka rabo inuu mustaqbalka helo dhaqaale aad u fara badan waxaa looga baahan yahay inuu sameeyo waa isbarid joogto ah si noloshaani ugu gaaro guul gebagabadii dhalinyarada soomaaliyeed waxaan ku waaninayaa inay mas-uuliyadda naftooda iyaga isa saaraan adduunkani cid kuu maqan ma jirto adiga ayaa mas-uul iska ah waxaana lagaa rabaa in noloshaada aad ka fikirtid si aad u gaartid guul adduun iyo guul aakhiro waxaan rajaynayaa muuqaalkaani wax badan inaad ka faa'iideen halkaani waxaan ka soo gudbinaa qisooyinka barnaamijyo dhiirigelin ah iyo wixii la halmaala waxaan kaa codsanayaa haddii halkaan ku cusub tahay inaad sabskraibe ii saartid si halkaani aan ugu dhaqaaqno oo aan u gaarno meel sare haddii muuqaalkaani ku soo gaaro laag saar si dad fara badan u gaaro wixii talo iyo dhiirigelin ah qeybta hoose nooga leh aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin intaan muuqaaliga aan ku kulmi doogno sidaasoo nabadgeliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu